Soomaaliya sidaad u jeedaan waxaan arkaynaa maqaayadii Soomaaliyeed oo maalin dhaweyd aan idiin soo duubay ayadoo la xirayo ayaa durba maanta loo soo laabtay sidii magaca looga tirtiro. Sidaad u jeedaan waa nin askari oo dharcad ah, ranjigaas ayuu soo qaatay wuxuuna masaxayaa magacii maqaayadda dadkii oo ku jiro ayadoo dadkii heraarada taagan la yaaban yihiin ninkan Turkiga ah oo askariga dharka cad ah waxa uu sameynayo. Waxaa dhibaatooyin badan ka soo wajahay dhinaca Soomaalida dalka Turkiga in Soomaalidii dib weyn lagu hayo ayadoo haddana ay doorasho soo afhayso dalka Turkiga. Sidaad u jeedaan waa maqaayadii Soomaalida, dadkii dhan baa laga ciirinayaa. waxaa la leeyahay dalkan iskaga baxa maqaayad iyo middoonaba meeshan waxba kuma lahaan kartaan. waxaad u jeedaan waa dadkii dharcadkii oo kor taagan oo sugaya magaca intii laga tirtirayo. waad u jeedaan Soomaaliya meel kastay joogto waxaan rabaa inay ogaadaan dalka Turkiga inaysan welcome ku ahayn oo dalkooda iskaga laabtaan inta joogta Turki. waxaa la yaabay ilaa hadda Soomaalidii oo Turki soo qulqulayso ayaguna saan ola dhaqmayaan dalka Soomaalida ah. ilaa hadda madaxweynaha dawladda Soomaaliya oo san ka hadlin iyo wasiirka dibadda ilaa hadda uusan waxba ka soo geysan hadallo iyo qoraallo oo waxba laga heen. sidaad u jeedaan maqaayadii waa lagu heeraarsan yahay. waxaas aad u jeedaan waa Turki ka soo horjeeda meesha in la xiro. Soomaalidii oo la yaaban maqaayadii laga soo saaray ayagoo cuntadii cunayo. waxaad u jeedaan waa Turki qaarkood oo Soomaalida qaarkood u dadaalayo. ninkan aad u jeedaan waa milkiilaha maqaayadda saab ee ku taalo dalka Turkiga Ankara, isagoo waraysi siinayo. waad u jeedaan dhibaatada lagu hayo dadka Soomaalida. waxaad u jeedaa waa milkiilihii labaad oo la fajacsan dhibaatada meesha ka socoto. Soomaalida waxaan ka rajaynayaa inay dawladooda dhistaan, dadkooda garabka raacaan, isku tashtaan. fadlan la xiriir dadka kale.